بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الحمد لله وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحلقة سدحات قصص الأنبياء أما قصوينك أنبياء إلهي أنو قصوا هتليني. waxaan ka cudur daaranaa baaqashadeena shalaytu naga baaqday lan balanteena waxay ahayd sabti ilaa khamiis casharkeena inuu taxaan noo ahaado. koleyto duruuf iyo wax waa iska imaanaya, markaa la isku cudur daaro maalintii uu baaqdo. wathani sabtidii xalqada labaad markaan ka hadlay taariikhda January 24 ayaan ku sheegay waa qaldamay sida qof uu igu baraarujiyay walaalaha kamid ah. الله خير هسيو 26 ay ahayd January maalintii sabtida ahayd. marka insha Allah aan u soo noqono mowduuceena ku saabsanaa anbiyada Ilaahay alayhim assalaam qisastooda. Allah quraankiisa wuxuu ku yiri nahnu naqussu alayka ahsana alqasas bima awhayna ilayka hadha alqur'ana wa in kunta min qablihi lamin alghafilin. الله سيقول الله هذا رسولك محمد صلى الله عليه وسلم وحو آيدان ونوغو شيغي إنو يرى نحن نقص عليك أحسن القصص وحنكو سو وحيونينا أما أنكاقا قسينينا قصوين كوكو ده وقوة ناكسن. إذن إلهي أنبياديس قصص تودا وقصة لردقيستو كوة وقوة ناكبطن. والله نبي سوكولي هاي آيدا آخر كذا وإن كنت من قبله لمن الغافلين. waxaad ahayd intaan qur'aankan aan kugu soo waxyoon ama aan kaga qisaynin anbiyada qisastooda mid ghaafilun wax ka ogeyn ayaad ahayd ayuu Allah subhanahu wa ta'ala uu noo sheegay. marka idan ilaahay anbiyadiis qisastooda qiimaha ay leedahay arin la soo koobi kara ma ahan inaan daraasayno. isla سورة يوسف إله وحو كوير آيات بقل كوي تبنات سنهاري أشيغني لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. أيضا قصص أقونا قبضا أيهين هدنا الله وحو أقوتها لقال إن لقو عبرقاته ولبا تتك عقلية أصاحيبك. إذن الله قرآن كيسا قصص لقو الشيغي رسولك اسم محمد صلى الله عليه وسلم سنة ديسا يعني أحاديث قصص كاللغو الشيء أنبياء قصصته ذي كمدة هدي كل فان وحن رجعان ملاينا إن عقل جاجا وصنقونين مدمر الدلع عقل ما إنسان أنا جوا رجنه الدويدي هرو مركز أو لغو كرديو تدا لغة تجيسا هدو هرو مركز إيمان كوسا لسنين mustaqbalkaaga aakhire dhabta ah waxba ma ku anfaciyo. marka mustaqbalka dhabta waa ka rabbi kula rabo oo diinkiisi ah. mustaqbalka adduunkana waa inuu ka dambeeya mustaqbalka aakhiro. mustaqbalka aakhiro daraasaynteedii inaan isku hawlino ayaa nooga khayr badan awalan ka dambe intaan isku hawlin lahayn. ka dambe haddaad heshada uu ku dhaafaba kulle adduunyadan waa cabaysaa waad cunaysaa. أما كان آخرة هدو كدافو مستقبل كاقا دوني آخرة تسيقيسا. أيضو علمي مركز اللوبة هي لكن هالنغضو متك أغهريو كان آخرة دادا تانا وحي كدعي دا عيال كينا انت يريهين با آن كوهابينو إله الدين كيسا برشديسا سي مركي سوهانت قادان حبط كودو غبوحو إله الدين كيسا marka wax ma ka dhibayo culumtooda adduun markay fursad u helaan inay daraaseeyaan ayagoo qalbigooda diinkooda ka buuxo marnaba aan la qaldi karin. Allah wuxuu yiri laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. qastast waxa xaqiiqa ah anbiyada Ilaahay qisastooda dhexdooda inay ku sugan yihiin cibro dadka aqligeeda u saaxiibka ah عبرة قادشة إني أقول سجيه إلى أن بيد السيد النولايين وحي أدويدان كسو مرين أو محناء سان أركدونه بإذن الله. أحبابي في الله
warkeena wuxuu joogay qasaa'ista ambiyada ay leeyihiin. waan arki doonaa ambiyada markaan ku hadal qabsanayo rasuul iyo nebi way kala gedisan yihiin, wayna kala baxsan yihiin, isku midna ma ahan, laakiin miduna isaga qabanayna hadhowdan kala ogaan doonaa maxaa rasuul ah maxaase nebi ah. qasaa'istii aan kusoo dhex jirnay ay leeyihiin oo ilaa dhowr wax ku gaar ah ambiyada ilaahay khalqiga intoodii kale uga gaar yihiin ayaan soo sheegnay. waxaan ka mid ahaa in qofka rasuulka ama nebiga ah meeshuu ku dhinto in lagu duugayo oo meel kale loo guurinaynin. firaashkii uu ku jiifay markaas sakaraadku ah uu jirnaa, meeshii uu ku dhinto in firaashka laga soo leexiyo qabrigiisa looga qodaya, meesha lagu duuga, sida rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam qolka Caaisha uu ku geeriyooday uu ugu duuga yahay. ta kale waxaa ka mid ah qasaa'istooda in ilaahay rusushiisa iyo ambiyadiisaba rag ay ahaayeen, kuwa alla uu soo dirsanay, aysan dumar rasuul ah aysan jirin intii alla rasuul uu soo dirayay. taana waad garan karaysaan sababta ilaahay rasuul dumar uga dhigi waayey. takliifka ma qaadi karayaan dumarka, mas-uuliyada culus. siirada rasuulka inaad soo marsay waa kaa. waxaa ka mid ah inay yihiin bashariyada ama bani aadamka kuwa ugu kaamilsan ama ugu dhammaystiran xagga abuurista iyo xagga dabeecadaba, inay ugu dhammaystiran yihiin. rususha ilaahay khalqigooda kaamil waaye, nusqaan ma lahan meelna. sidoo kale akhlaaqdoodina way dhammaystiran tahay, waa kuwa aad u saraydo akhlaaqdooda, khalqiga intoodii kale ka sarayso. waxaa ka mid ah ilaahay markuu rasuul ama nebi dooranayo magaala laga dhex doortaa, baadiyaha ama miyiga lagama dhex doorto. inta rasuul alla uu soo dirsanayay sida alla qur-aankiisu ku sheegay. taana micneeda ma ahan miyiga dadkooda inay ceebaysan yihiin, laakiin ilbaxnimada iyo isdhexgalka iyo waxaa ku xeel dheer dadka reer magaalka ah. qofka reer miyiga ah wuu la qabsan karaa, wuu isku dayi karaa inuu la tacaamulo ama la mucaamaloodo. xigmadana ilaaha yaqaana. waxaa ka mid ah rususha iyo ambiyadaba riyadooda inay xaq tahay. xaq inay tahay waxaa ujeedaa inay waxyi tahay, waxay ku riyoodaan inuu wax jiro uu yahay. taana waxaa daliil u ah rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam intaan loo soo waxyoonin ka hor 6 bil riya ayaa arintiisii ahayd. mariyooda habeen ilaa waaga markuu baryo bariyadii siduu waagu u baryo oo kale u imaanaysa, ayadoo siduu nabigu u arkay sallallahu alayhi wasallam. wakadalika nabi ibraahim alayhi salaam markii la amray wiilka ismaaciil inuu gowraco riya lagu amray. watuu leeyahay yaa bunay inii araa fi lmanaami annii adbaxuka fandur maada tara. wiilkaygiyo waxaan arkayaa ama laygu tusayaa riyada dhexdeeda aan ku arkaa inaan ku gowracayo. ayaa riyada dhexdeeda laygu tusay ama aan ku arkayaa. ka fiirso fandur maada tara, maxaad ka dhihi lahayd arrintaa? waatu wiilku yiri yaa abati ifcal maa tu'mar, aabbow samee waxa lagu amrayo. idan marka maxaa lanala dareensiinayaa in amar uu yahay ama amar ay tahay riyada waxa lagu tusinayo oo alla xaggii ay ka socoto. satajiduni in shaa allah min asaabiriin, waxaad heli doontaa anigoo kuwa sabraya ka mid ah. waxaa ka mid ah rasuulkeena maxamed sallallahu alayhi wasallam ama rususha ilaahay in loo soo diri jiray qolooyinkooda gaar ahaan. rasuul kastaba qabiilkuu ka dhashay, qolada uu ka dhashay ay unbaa loo soo diri jiray. ummad kale ama qabiilooyin kale shaqo kuma lahayn. qabiil markaan ku leeyahay madalan Soomaaliya oo kale inta qabiil kala gedisnaa degan, laakiin hal ummad waa Soomaaliya la isla wada yiraahdaa. يعني dadkaasaa loo soo diray. ma fi hadal macniis Kenya darisay la tahay, Soomaaliya Ethiopia darisay la tahay, shaqo kuma lahan. yani shaqo kuma lahan Kenya iyo Ethiopia. Soomaaliya kaliya ku shaqo leeyahay rasuulka
qoladiisa loo soo diray markuu yiri wuxuu Soomaaliya uu leeyahay sida nabi Muuse alayhi salaam uu dhahayay yaa bani Israa'iil ama yaa qawmi nabi Ciise uu dhahayay yaa bani Israa'iil ama nabigeena Muhammad sallallahu alayhi wasallam waxa loo soo diray ila kaafati الناس dadkoo dhan madowgooda iyo cadaankooda nooc kasta uu yahay carabkooda iyo cajamkooda khalqigoo dhan loo soo diray nabi Muhammad idan waa ka shaqo badnaa oo ka takliif badnaa rususha Ilaahay intoodii kale nabigeena Muhammad sallallahu alayhi wasallam sidoo uga fadli badnaa rususha intoodii kale sidoo nabigeena uu yiri ana sayyidu walad aadam wala faqr aadam intuu dhalay sayidkoodan ahay faana ma ahu sallallahu alayhi wasallam hadis macni sida uu ahaa idan marka rasuul iyo nabi isku mid miya ama farqiga u dhaxeeya aan ogaano waxay culimada ka yiraahdeen war kooban rasuulka ayaa xeel dheer rasuul markuu yahay shakhsigan la soo diray nabina wuu yahay ama nabiga rasuul ma ahan marka rasuul ka sareeya rasuul haduu yahay nabina wuu yahay rasuul waxa la yiraahdeen culimada war badan ay ku shaqaar waxay yiraahdaan isku mid waay nabi haduu yahay rasuul haduu yahay nabina wuu yahay laakiin waxa raajixsan inay kala soocan yihiin sida Allah quraankiisa ku yiri wadhkur fil kitabi Musa innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya كهبل يا محمد موسى كتابك وغشيكي أرنكيسا وحوها مد مخلص إلهي سافئة داعديسا وحناها رسول والنبي إذن لابد جقوه رسول علماء وحيرادين قولك أقول راجحسن qof loo soo waxyooday sharci cusub loo nadiray umad gaala ah oo alla rumaysneen diinna wax ka ogeen sharci cusub uu wataa sharci cusub loo soo waxyoodo markaan leeyahay rasuul ka horeeyay haduu jiro sharcigiisi sharci aan ahayn uu wataa hadda nabi Muhammad alayhi salaam nabi Ciise ka horeeyay Muuse ka sii horeeyay لكن أسيق الشرع عصبه اللي يمد أون أهين كي بني إسرائيل النبي موسى الله وقصور ديبي كي نبي عيسى عليه السلام بني إسرائيل وقصور ديبي بل كتاب عصبه اللي يمد نبي صلى الله عليه وسلم كجد سن شرعية دي هوري رسول كاوة وحان الله صادر دد قالاء أن دين هرأو هاي سنين الله شركي أسمين يكو كفريي أما النبي والله سو وحيودا لكن شرع عصب ما أهن شرع عصب أو أمد أولا تجيو أو كي هرا أنا أهين ميا بل شرعي هرو كلقا أمداس أو شيغا تهذا كلو حير العلماء ما أنا لقو كلفين شرعي إنه قد بيو قصبكم ما سيد رسولك وكلا رسولك حواي فإن لم يعني بلغ ما أنزل إليك وحي لقو قصو الدجية قارسي وإن لم تفعل فما بلغت رسالته هذا إذن يالن إلهي رسالة اسمه إذن قدنين قصبي كنتها رسولك إنه قد بيو الله وحي أسو وحيود يا أيها المدثر قم فأنذر بيتك أسدو دوبيو كع ديك كلفة كنتها قصبي كنتها أما النبي قمية والثاني نبي وحول لحجوغا ضد مؤمنين ورسول هوري كردنتي سيدة بني إسرائيل نبي بضنا لحجري نبي موسى بعد قيس نبي بضن أيا كل حجرين سنركض دونه ونركض دونه بإذن الله يوشع بن نون شمويل نبي أيا دحجوغي مركا رسول إيو النبي حالك وذا سيداسو كليهي إنا نفهمني أيا رجينيا رسول ومد شرع عصب لو سو وحيوذي قوم قال أهنا الله ديري أما النبي شرع عصب لو ما سو دجن الله وحيونيا لكن شرع عصب كبدلن ما أهن شرعي رسولك ماشي كبحي دنتي
teeda kale dadku u dhex joogana waa dadkii rasuulkii hore ka tagay oo mu'miniin ah, maahan dad gaalo cusub loo dirayo. qasabna kuma ahan risaalada gaarsiinteeda sida rasuulka oo kale, laakiin mana ka reebna inuu dadkii wax u sheego, uu baro wixii hore nabigii rasuulkii ka tagay oy hilmaameen, inuu ugu celiyo, uu ugu yeero, uu dadkii u celceliyo. marka taana waa taa rasuul iyo nabi sidaasay kala yihiin. teeda kale waxaa jira ulul azmi min ar-rusul, rususha ilaahay soo diray 5 ayaa ugu fadli badan. intaa rusul oo soo diray oo 25 aan niri quraanka lagu sheegay iyo inay kasii badan yihiinba, waxaa ugu fadli badan 5 taasoo la isla yiraahdo ulul azmi min ar-rusul. waa rusushii ugu waaweynaa ulul azmiga ahaa. waxay kala yihiin iga tirso 5 waa nuux, إبراهيم، موسى، عيسى، محمد عليه الصلاة والسلام، عليهم الصلاة والسلام. نبي الله نوح، نبي الله إبراهيم، نبي الله موسى، نبي الله عيسى، نبي محمد صلى الله عليه وسلم. انتو دن وحا وفضل بدن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. marka 5 waxa la isla yiraahdaa ulul azmi min ar-rusul. hadii lagu weydiiyo 5 saatiranay ulul azmi min ar-rusul am rususha ulul azmiga intee way tiradoodu waa 5 sidaasayna u kala horeeyaan. nuuxa ugu horeeya, ibraahima ku xiga, muusa ku xiga, ciisa ku xiga, nabigeena ugu dambeeya, asigana ugu fadli badan intooda oo khalqiga oo dhan ugu fadli badan yahay ama bani aadam oo dhan. طيب ulul azmi min ar-rusul ayaa kuwa ah. intaa bacdigeeda axbaabi fillah, rususha qisastooda aan ka hadlayno waxaan hore u soo sheegnay bani aadamka inay baahi weyn u qabaan soo diristooda, si in ka badan intay u baahan yihiin waxay cunaan iyo waxay cabaan. maxaa yeelay rasuulkan alla wuxuu u soo diray inuu ku badbaadiyo adduun iyo aakhiraba ayaa allah u soo diraa. marka imaanshahoodii maslaxa noogu jirto. dadkan rasuul loo soo dirin waa dadka bahaa'imta ah duurka isaga jiro, ood aragteen siday u nolol eg yihiin. maanta dadkii markay diinta ka tagaan waxay shabahayaan dadka duurka joogo oo bahaa'imka waxba aanan dhaamin. maxaa yeelay dadkii maanta diinta markay ka tageen dhagihii dulayshadeen, sankii durteen, dhar jeexjeexanay qaateen oo lacag qaali laga soo bixinayo. rag hadduu yahay cawradiisuu banaynaaba dabadiisuu banaynaa, surwaalka dhacay intuu xirto, gabarna warkeedii dhaaf. adduunayba ku khasaarayaan. shaytaan ayaa hoggaansanaya sanka intuu ka duleelsado. laakiin markaad diin leedahay ood wax og tahay, noloshaada waxay tahay mid dheeli tiran oo nidaam ku socota. marka idan rasusha soo diristooda maslaxa noogu jirta. maantana inaan barano ayaa ka mid ah maslaxadii noogu jirtay in aan waafaqnay. ilaahay hana garansiiyo inaan ku cibro qaadano, ku waana qaadano, ku intifaacno waxana looga sheegayo ilaahay rusushiisa subxaanahu wa tacaala. aan u gudagalno aadam calayhi assalaam oo ah abulbashar ee nebiga ugu horeeyey ama bani aadamka ugu horeeyey. laakiin qabla aadam calayhi assalaam aan ka hormarino xaaladdu say ahayd. saxiix bukhaari waxaa ku soo arooray ama ku sugan iyo keyrkiisaba xadiis laga warinayo cimraan ibn xusein radia allahu canhu. cimraan wuxuu nabiga ka wariyey, nabiga dhihi rabi wuxuu sheegay nabigeena sal allahu alayh wasalam inuu yiri qabiil la yirahdo bani tamiim oo u yimid, bani tamiimay bishaaradan iga aqbala, bishaarada aqbala. markaasay yiraahdeen
qad bashartana fa actina waad noo bishaaraysiye nasii nabigana wax gacanta kuma haynine inay ogolaadaanay ahayd khayran ku wada adoo lagu yiri oo kale wax lagu wado laakiin wanaagan kuugu socdaa waxaa fiican inaad tiraahdid waan kaa aqbalay markii rasuulka sida ay ugu jawaabeen nasii waxaad noogu bishaaraysay ayaa waxaa u yimid nasiib daridooda darteeda wafdi kale oo yemani ah markaasaa rasuulku uu yidhi sal allahu alayh wasalam wafdiga yemaniga ah yaa ahla alyaman aqbalu lbushraa id lam taqbalha banu tamiim ahlu yaman ee bishaaradan aqbala oo iska diiday reer banu tamiim ahlu yaman ilaah nasiib ugu dhigi waxay yidhaahdeen qad qabilna waan aqbalnay subxaana khayrka markii lagugu yeero ha ismadax adkaynin xataa adigoo isdhahaya ma samayn kartid waxaa lagugu wacooyo waayahay dheh waa intaasoo alla madax raaricintaadii xaqa hogaansigaada dartiisa qalbigaga hanuun geliyo ood heli lahayd laakiin inaad tiraahdo maya aniga ma awoodo maba ku camal falanayo maxaan u dhegaysanaa maxaan u yeelaa waa lagu dhumina tawalla maa tawalla waxaad jeclaysatayaa lagu siinaa ma diyaar ma u tihid mahano horaa laguu dhuminaa halis waayo waxyaabaha soomaalida ay caadaysteen wuxuu ku leeyahay maxaan u baranaa maba ku dhaqmaayo subxaana malikulquduus waa jahli meesha ugu dambeeyey wa arrintan ma ka maarantid ama ku dhaqan ama ha ku dhaqmin walle geediyaad u tahay qabriga mitirka ah waxa lagu weydiinayana uu yahay man rabbuk wamaa diinuka wamaa nabiyuk ama bara ama ha baran adigay ku jirtaa haddaad ku badbaadays wax ma soo baranin wax ma dhegaysanisay ay naga dhaadhacsan tahay in badan anaga naga mid ah walle waa ku halaagsamaynaa ayib ee diinta allah soo qaabila axbaabi fillah u imow dhegayso baro adigoo daraagis gada xataa lacalla ilaahay maalin inuu kusoo hanuuniyaa laga yaaba qalbigaaga ha jilcanaado marka waxaan xusuustaa allah ha xifdiyo walaalkeena zulfa anagoo yaryar heestiisa waad ogtihiin nin fanka uu ku jiray inuu ahaa ciddad maqashiisay kaali sheeg bani aadamka cajiibay leeyihiin kaal dhegaysaba cajalkan heestan dhigta u dhigo wuxuu dhahoyaa markuu hayso inta uu aamusay muusikada socoto saligu nabigu ku salinaya sala allahu calayhi wasalam cajaa'ib qul allahuma salli calaa maxamed allahuma salli calaa maxamed waa qof isugu jiray khayrkana waa jeclaa shartina waa kaa uu ku jiraa alla muxuu siiyey marka maanta inuu noqdo mu'adin uu toobad keeno uu ka toobad keeno uu ka codsado dadkii heesahigayaan la dhegaysan halayga tirtiro qofkii ugu kaalmayana ajruu helaya marka adigoo xumaan ku jira xataa khayrka dhegayso shaydaan wuxuu ku leeyahay dabaal maa tahay anaga ma nagu ciyaare intana sheekadaana waa wadataa masaajidkana waa joogtaa miya waxaa wacdiyaa dhegaysanaa yaa kaashi aqbalaa sheekadaas maya rabbiga ku abuurtaya naxariis ballaaran wuxuu ku leeyahay laa taqnatuu min raxmat illah alla naxariistiisa ha ka quusanina adigoo wax kasta ku jira khayrkana u hogaansano khayrkana raadi allah meeshii dantaada oo kula doonuu kuu jiidan doonaa ha noqonin qof shaydaan gacan saar la yeeshay bilkulliyan rabbigayga waa ka soo go-ay adigan kuu soo go-ay taa marnaba ha noqonin marnaba taa ha noqonin xadiiska reer yaman way ka aqbaleen nabiga bishaarada waa ka aqbalnay yiraahdeen yaa rasuul allah ji'naaka dantooday u sheegeen markay u yimaadeen waxay yiraahdeen ji'naaka qaaluu ji'naaka linatafaqah fi ddiin walinas'alaka can awal hada alamr waxaan kugu nimid inaan wax kaa weydiino on kaa barano yani linatafaqah saan u barano fi ddiini diinka inaan baranaan u nimid waan islaamnay diinka islaamnimadeena muujinaya inaan baranaan u nimid kow iyo walinas'alaka inaan ku weydiino can awal hada alamr
yacni arrinkan bilowgiis maxay ka wadaan arrinka khalqigan ilaahay uu abuuray bilowgiisa koonkan dhulkan iyo cirkan arrimihiisaan kaa rabnaa inaad noo sheegto markaasaa rasuulkeena sala allahu calayhi wasalam uu yidhi kaana allah laa ilaaha ila allah allah ahaa walam yakun shay qablahu wax ka horeeyeyna ma jirin subxaanah allah ahaa marka idan maxaan ka bilaabaynaa bidaayat alamr bidaayat amr hada alkown koonkan aan ku noolnahay bilowgiisa axbaabi fillah muxuu ahaa kaana allah allah ahaa subxaanah walam yakun ma ahayn shay-un waxba qablahu allah hortiis subxaana allah alla keliyaa jiray wax ka horeeyey ma jirin lafdi kale wuxuu ahaa riwaayad kale ama lafdi kale walam yakun shay-un macahu wax la jiray ma lahayn riwaayadda hore maxaa wax ka horeeyey ma lahan tanna wax la jiray ma lahan riwaayad kale waxay leedahay ama lafdi kale walam yakun shay-un gayruhu geyrkiisi ma jirin cidan asiga ahayn ma jirin wa kaana carshuhu cala almaa وكتب في الذكر كل شيء وخلق السماوات والأرض سيداس النبي يري صلى الله عليه وسلم وحو يري وكان عرشه على الماء الله أها وحك هريين ملها مجر وح لجرنا مجر غير كيسنا مجر يعني وحبة مجر وحبة مجر معني ما تقانا وحبة مجر وكان وحو أها عرشه إلهي عرشه سنة على الماء بيكركيسا وكتب في الذكر الله وحو قري لوح محفوظ كالدحديس وحكو قري لوح محفوظ أيو قري دحديسا كل شيء وحو البق أيو قري إلهي سبحان الله وحو البق محالو لجيدا قرال كاسمركو بلابناي إلى الدوية أي دماته ilaa waxaan anaga garan karin ayuu alla ku qoray loox maxfuudka dhexdiisa wa khalaqa asamaawaati waalard wuxuuna abuuray cirarka iyo dhulka idan maxaan ka fahmaynaa xadiiska anayto dhulka iyo cirka abuuristooda inuu ka horeeyey carshiga iyo biyaha inuu ka horeeyey حديث عمران أنه وذي معان حديث كان فيري عمران سيدو الشلينيو رضي الله عنه وحور عمران قفا أيمد مركة قف أيا أيمد قفا أيمد عمران قف كاسا وحو كوير عمران وهش هذا كجارو نيف هذا قيلة كجارو حرقي وفرتي عمران وحو يري وانصوب حي waxaa kala gooyay asigii hashi dhan dabagaaleedki yaani wuu waayay dhan dabagaaleedka ama dhalanteedka ayaa kala gooyay way fakatay tabcan wuxuu faa'ida sirab yanqati' dunaha wuu arki way ala kulli xaal way ka fakatay Imraan wuxuu leeyahay fa wallahi lawadidtu anni taraktuha wa lam aqum walla waxaan jeclaystay inaan iska dhaafaba oon u soo istaagin markii laygu yeeray riwaayad kale waxaa ku jiray inuu yiri kharajtu fi ithriha raadkeedan ku soo baxay hashaada ka gaar marka la yiri fala adri ma garanayo ma kana bacdi wixii iga dambeeyay warka macaan ka badan yani inta in ka badan noo sheegi lahaa Imraan haduusan soo bixin marka ma ujeeda adduun soo ku gafinayo dantaada khayrka aakhira marka adduun sidiisaba waa wax alla ku seejinayo waay Imraan warka quruxda badan inta dambe waxaa dhaafsiiyay geelka mashquuliyay loo soo diray ninka yiri geelkaaga ka gaaro marka ahbaabi fillah riwaayad kale waxaa ku jiray oo sahih muslim laga warinayo xadiiskana Abdullah ibn Amr ibn al-Aas wuxuu yiri
الله رسولك وحوير صلى الله عليه وسلم إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة وكان عرشه على الماء. سبحان الله. حديث كان وحو ليهي الله رسولك وحوير صلى الله عليه وسلم إن الله قدر مقادير الخلائق إلهي وحو قدري وجانقويي خلائق با وحان أبوري وحاد أكتهي وحدا أقين وحاد أجيد وحدا أجيد أيو الله سبحانه وتعالى قدر مقادير تودو جانقويي وحا كستبا وحو نقن دون انتي قران بريسا عوني دونتا انتي نولان دونتا قرمان دلان دونتا سي نولان دونتا سي سبحان الله قيد كان قرمو دبيش اي دقاجين دونتا على انتي كسو قوئي دونتا وحوال بالدقيق عيدان دول كدات سن حبت كستبا تيرادي دا لا اوكي هاي إماشي كتالا دولك إمدب كي لاذا هاي محايالي أسيقا سميست إلهي علمي قيدن وا اوغي هاي مالنتي كنسقاميسو إي مالنتي كسو كردي ودو يهي الله هاقا علمي قيسا جوابت ما يوا الله وحو قدري خلائق ذا مقادير تودا نولاشو دي سي نولان لهايين قرما قبل أن يخلق السماوات والأرض انتو صن أبورين سمدها يردلك ب50,000 سنة كنتم كن سنة كهر حالة الدنيا ما أنت أيتهاي انت لا أبورين ديارو أها سبحان الله سبحان الله marka cilmiga macaantiisa iyo quruxdiisa ma u jeedaan ayuha al-ahbab qonton kun sano ka hor waxa diyaar ahaa loox maxfuudka diyaar ku ahaa khalqigan xaalkiisa wa kana arshuhu ala al-ma arshigiisana ilaahay wuxuu ahaa biyo korkiisa arshi muxuu yahay inaad isweydiisaa laga yaabaa arshi lagu jiraa arshi markaan adduun ku fasirno macna luqada waxa la yiraahdaa boqorka sariirtiisa oo ku fariiso boqorka الله بقرك أدوية واي عرشي كان أسيقا إسكاله الله سبحانه وتعالى عرشي جيسو كسريا سيدا عقيدة السلف كأي قبان لكن معنيه سود السارين هي ماهاني وكسريا كسرين أسيقا أو عنتنته أو أنا نقرن كرين أنا نديه كرين سيدا سو كسريا سيدا سنة عقيدة سلف الصالح أي تهي من الصحابة والتابعين إذن محان أوغاني الله جل وعلا مخلوقات كيسا وحا أقهري وحا ويان عرش كيسا كدب كرسي ويان كدب بيها كدب ويان قلنكا أو مركا لح محفوظك وحا أكو قريو إذن الله وحو أبوري مخلوقات كيس وحا أقهري عرشك وانا مخلوقات إلهي متك أقوين واي هو الله أبوري سبحان الله نبي مركو كهد لي عرشك مركا الله في ريونولك إيو عركة وحي لمتهي قرانقر أو ميل صحراء لقول ردي أي عرشك يونولك عركة يسويهين تضبط عر يدولك تضبطودي عرشك مركا لو فيريو انتاس isu yihiin